السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa channelkeena Guaranteed. maanta waxaan idiin haynaa 10 aad iyo aad u muhiima 10kaas oon ka wada faa'iideysan doono ayaan aaminsanahay. San ogsoonahay baryahan dambe dadku fiidiyoyo ama sawiraan ay galaan fiidiyoyadan ama sawiraanta baan iraada cilada badan bay dadku kala kulmaan. inta badan fiidiyoyada waxa dhici karta fiidiyo dhan oo waqti aad galisay ama fiidiyo dhan oo daawanayso meesha doontaba hay noqotay ama WhatsApp-ka ama Facebook-ka ama YouTube-ka ba fiidiyo dhan oo xog badan xambaarsan oo haddana ma garanaysa shakladiisa aanad u khashuucin shakladiisa markaan leeyahay qofkaasi fiidiyowga soo edit gareeyay ama uu ku soo bandhigay ayaa ka cuntumi waayay anaga ahaan ma arkisidba sawirkeenan xagan ka muuqata waxaan wada arkaysaa qoraalka xaga waxa ku qoran Vuzi photo Vuzi waa wax unclear waa waxaanad arkayn oo laakiin aad arkaysaa wali xagan kaaga muuqdo waad arkaysaa xagan loox baa yaala looxani wuxuu noqon karaa ama mid wax la dhigto ama mid lagu fadhiisto ama wuxuu doonaba ha noqdo whatever xaga waxa kaaga muuqda laba qof midna garan buluuga xidhay midna garan cadaan xidhan yahay waxay yihiin ma garan karno xitaa dad adiga iyo aniga baan nahayba sababta keentayna ma oran karno waa kamarada mana oran karno waa formatka waa laakiin waa cilad u baahan in la ogaado waad oran kartaa 25 ama 30% waxaad oran kartaa qofka qaadayayba movement khaldan sameeyay marka khaladku saas ku yimaada taana waad oran kartaa waxyaabo badan oo lagu eegi karo way jiraan laakiin inta badan fiidiyoyada ciladaha kaaga imanaya waxa weeye formaadadana inaad wax badan aad ka barato weeye marka anagu waxaan diirada saari doonaa YouTube-ku mar hadduu u yahay asaasi marka waxyaabahan social media ama fiidiyoyada la adeegsado meelaha la wada dhigo dhan markaasi aanu fiidiyogaaga ku tacab khasaartay ama tacab aad gelisay yaanu noqon mid aad ku tacab khasaartan u jeeda marka waa inaad fiidiyogaaga aad ka warhaysaa ciladaha kugu imanaya ama aad ka hortagtaaba ciladaha la kulmi karto mustaqbalka ama waqtiyada dhowba marka waxaan doonaynaa fiidiyoyada la upload gareyn karo YouTube-ka inaan xog ka helno kooban YouTube-ku wuxuu support gareeyaa fiidiyoyadan soo socda lagu leeyahay ama aad ku upload gareynaysaa fiidiyoga 3GPP la yiraahdo AVI la yiraahdo ama FLV ama MOV ama MBEG4 dadka qaar baa maleeya ama u maleeya in MB4 isku mid yihiin laakiin isku mid maaha MBEGPS iyo WebM iyo WMV iyo MBEG4 inta badan ayaa loo isticmaalaa ma garanaysa YouTube-ka walow laakiin YouTube-ku extension ahaan u siiya MB4 oo awooda siiya ma garanaysa MB4 oo ma garanaysa siyaabo badan oo ku xooshay awgeed xaga waxay nagu cad inta format ee ma garanaysa YouTube-ka la gelin karo ama video aad ku upload gareynayso walow extension ahaan ama uu yiri ma garanaysa YouTube-ka MB4 ayaa ugu fiican inta aan fahanay waxaan doonaynaa inaan ogaano hadaba fiidiyoyada ugu fiican waa ma garanaysa lagu upload gareyn karo YouTube-ka sidaan markii hore idinka sheegay ama YouTube-ka waxay soo saartay ama ay sheegtay aan iraaday formatka MB4 inuu yahay ka ugu fiican waliba waxay tiri MB4 qaybtiisa sumada ay tahay H26 video codec ACC audio codec codec waxaan oran karnaa waxa weeye waxa loo soo gaabiyay decoder waana it's an algorithm tana waxa loo adeegsato waxa weeye algorithm loo adeegsado in lagu encoder gareeyo datada sida audioga wixii la maqlayo iyo wixii la arkayo ee video ah marka algorithm waa maxay inta yar waxay naga soo galay 10 naga madax banaan oo aan imika aan soo qaadanayn laakiin algorithm inaan concept yar ka qaadana weeye algorithm tu waxa weeye step by step solving problem waa dhibaato aad xalinayso adigoo step by step u maraya hal macno si consecutive ah ayaad uga baxaysa haddaad imika haysato matalan 1 2 3 4 5 6 ay problems kala duwan ay yihiin waa inaad aanad 5 ku bilaawin laakiin waa inaad si sequence aad u bilowdaa 1 2 3 4 5 6 ilaa intaad ka gaarayso tiradii lagu siiyay marka waxa xagga inooga cad inay tahay dhibaato la xalinayo step by step taana waan isla fahanay marka formaadada ugu fiican YouTube-ka waad garanaysaa waa MP4
walow aad kuwan kalena adeegsanayso FLV. waxaan kaloo eegi doonaa lixda ugu muhiimsan format ma garanaysaa loo adeegsan karo YouTube-ka. horena waan usoo aragnay lixdani waxa weeye AVI iyo MOV, MKV iyo MP4 iyo AVCHT oo loo soo gaabiyo Advanced Video Coding High Definition iyo FLV SWF Flash Format la yiraahdo. marka anigu waxaan adeegsadaa FLV inta badan formadeeda maxaa yeelay softwarekan wax ku record gareeyo ayaa kasii doortay settingkiisa formatka la yiraahdo FLV sababo badan oo aan research ku sameeyay. idinkuna waxaan doonayaa inaad ila eegtaan. inta badan waxaa dhici karta MP4 inaad doorato. MP4 markaad si toos ah automatically softwaredan aan magaranaysa cranka kusoo sameynay inuu kaa gubtaa dhici karta videogaagi dhana ama resolutionka ahmaad wixii doonta baa noqotay. marka anigu waxaan sameeyaa oo aan magaranaysa formaadada ayaan isku bedbedelaa sidii sarifka lacagaha oo kale. formatkan FLV ee aan haysto waxaad awood u leedahay inaad MP4 aad u bedeli karto oo dadkuna way wala bedelaan. formatkan marka format aad iyo aad u fiican weeye. faylka wuxuu kaaga dhigayaa wax aad u yar aad iyo aadna u fiicnaanaya maxaa yeelay inaad u fiirsato mooyo website-da inta badan video iyo waxaad arkaysaa soconaya video-yada soconaya ee aanad adiguna play aanad taaban inta badan waa FLV waa the best video ayaa la yiraahdaa isagana meel kastana loo adeegsado. sida awgeed waxaan doonayaa san hore kugu soo sheegay inaan isla eegno meesha videoga formaadada laga bedbedelo. waxaad soo download garaysanaysaa software la yiraahdo Format Factor waxaad ka helaysaa allahumma salli ala Muhammad Google baad ka helaysaa laakiin adaa soo download garaysanaya Format Factor baad ku qoraysaa sida xagga sare kaaga muuqata magaciisa Format Factor baad ku qoranaysaa. markaad soo download garaysato sidii caadiga ahayd wax loo soo dejin jiray ayaad soo dejinaysaa. markaad soo dejisato formatka doonayso adi kugu xidhan tahay. aniga kale waxaan doonayaa MP4 baan ku yiri haddaad doonayso MKV haddaad doonayso haddaad doonayso GIF ama WPM markaa ka doonayso adi kugu xidhan tahay. serviceyo badan buu bixiyaa softwarekan programkan. pictures ka kale haddaad doonayso inaad isku bedbedelasho sawir waxaad haysataa baad iska dheh PNG ah PNG haddaad haysta GPG baad doonaysaa GPG baad taabanaysaa. marka systemka already uu garanaya inaad PNG sawirkan yahay laakiin waxaad doonayso ayuun baad taabanaysaa. marka aniga ahaan inta badan markaan wax sameynayo MP4 waxaan imaadaa xaggan MP4 baan doortaa. MP4 markaan doorto folderkayga xagga kusii jira ayaan iraahdaa intaa inaad arkaysaan mooye add file waa aniga taabtay Flado inoo dul saarantay add file baan iraahdaa add file markaan iraahdo waxaan kasii dooranaya videogan doonayo wuxuu doonaba ha noqdo. videogan doonayo ayaan kasii dooranayaa aan eega inaan video haysano aan tusaale idinku bixiyo. video ii diyaara kanoo kale aan iska taabtaa. kanoo kale markaan iska taabto xaggana kuu soo dhigmanaya. xagga markuu kuu soo dhigmo okay baad oranaysaa. okay markaad tiraahdo wiitankiiba ku jira inaad amarkaad siisan buu doonayaa si folderkan uu kaaga dhigo MP4 walow kani videogan soo qaatay isagu laftigiisu MP4 uu yahay laakiin folder FLV ayaanan hayn imika diyaar. marka start baad taabanaysaa. start marka taabato xaggana ku buuxsamaysaa sidaad arkayso. markay ku buuxsanto already videogii ayaad ma garanaysaa haysan doontaa ama ku soo bixi doona. aad ayaan idin salaamay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. rabadaan wanaagsan.